Dhaqdhaqaaqa galmada ka hor inta aanad seexan waxay kaa caawin kartaa inaad si fiican u seexato. Marka xigta oo aad seexan kari weydo, waxaa laga yaabaa inay ku caawiso in aad nuujiso lamaanahaaga ama aad gaadho qaanadaha taagan habeenka. Daraasad cusub ayaa xaqiijisay waxa dad badan ay hore u ogaadeen dhaqdhaqaaqa galmo ka hor sariirta ayaa kaa caawin karta inaad si fiican u seexato. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Central Queensland iyo jaamacadda Flinders ee Australia ayaa 11 habeen oo xiriir ah la socday tayada hurdada ee toddobada lamaane ee kala jinsiga ah. Habeen kasta ka hor wakhtiga jiifka waxay u kala beddelaan jireen 3 xaaladood: sigeen keli ah, galmo lamaane ah, ama dhaqdhaqaaq galmo la'aan. Ka qaybgalayaashu waxay dhammaystireen sahanno maalinle ah oo ku saabsan jinsigooda iyo hurdadooda. Tayada hurdadoodana waxaa si quman loogu cabbiray madaxeedyada polysomnography oo diiwaangeliya dhaqdhaqaaqa maskaxda, dhaqdhaqaaqa iyo neefsashada. Qaabka ay ka qaybgalayaashu u raaceen 11 habeen ee ay daraasadda ku jireen. Si aan la yaab lahayn, habeenada leh nooc ka mid ah dhaqdhaqaaqa galmada, ka qaybgalayaashu waxay dib u riixeen wakhtiga hurdada ilaa nus saac, laakiin tani waxay ka dhigtay hufnaan hurdo badan. Waxa kale oo ay jeclaysteen in ay wakhtiga hurdada ku yareeyaan habeenkii. Natiijooyinkani may ahayn iswarbixineed, sidoo kale waxay si toos ah uga yimaadeen sameecadaha wax duuba ee hurdada. Ka qaybgalayaashu waxay sameeyeen horumarin iswarbixineed oo ku saabsan diyaargarowga iyo dhiirigelinta maalinta ka dambaysa dhaqdhaqaaqa galmada. Iyaga oo isticmaalaya miisaan 1 dhibcood ah, waxay sheegeen in ay dareemayaan ilaa 5 dhibcood dhiirigelin ka badan maalinta ka dambaysa fadhiga kali ah, iyo 11 dhibcood oo dhiirigelin badan kadib markii ay la degeen lamaane. Umay muuqan wax horumar ah oo ku saabsan sida degdega ah ee ka qaybgalayaashu u seexdeen ama muddada ay seexdeen, laakiin kooxda uu hogaamiyo saynisyahanka ciyaaraha hurdada Michele Lastella oo ka socda jaamacadda bartamaha Queensland ayaa ka shakisan in tani ay qayb ahaan sabab u tahay cabbirka saamiga aadka u yar. Ka qaybgalayaasha islamarkaaba waa inay xidhaan dhegaha oo ay bilaabaan ab telefoon si ay u duubaan hurdadooda. Sidoo kale waxay hoos u dhigi kartaa iftiinka dambe. Lastella iyo asxaabtiisa ayaa qiyaasaya. Si dhab ahaantii loo jebiyo faa'iidooyinka kiliinikada, cilmi baarayaashu waxay soo jeedinayaan in shaqada mustaqbalka ay tahay inay ku lug yeelato cabbiro waaweyn oo muunad ah, noocyo kala duwan oo galmo ah, iyo ay ku jiraan shakhsiyaadka qaba cilladaha hurdada, xaaladaha caafimaadka iyo dad ballaaran. Waxay u badan tahay inaysan dhib kala kulmi doonin helitaanka tabarucayaasha.